taliyaha ciidanka badda Soomaaliya General Xasan Nuur Culujoog oo dhawaan xilka la wareegay ayaa bilaabay howlo dib loogu dayactirayo xarumihii ciidanka badda oo burbur xoogan haatan uu ka muuqdo una baahan in dib loogu dhiso si loogu qabto howlihii ciidanka waxaana haatan taliyaha dib u dhis uu ka bilaabay dugsiga ciidanka badda ee ku yaala magaalada Muqdisho ayadoona ay ku xigi doonto xarunta weyn ee ciidanka badda Soomaaliyeed General Xasan Nuur Culujoog taliyaha ciidanka badda ayaa sidoo kale dhawaan dhisay marsooyinka ciidamada badda dhanka kale taliyaha ayaa wada qorshe lagu tayaynayo ciidanka badda si loo soo celiyo awoodii ay u lahaayeen ilaalinta xeebaha dalka oo la sheegay in mararka qaar ay ku soo xadgudbaan maraakiib laga leeyahay wadamada shisheeye isagoona dadaal ugu jira sidii ay ciidanka u heli lahaayeen tababar iyo qalabkii ay ku howlgali lahaayeen si ay u gutaan waajibaadkooda qaranka ciidanka badda Soomaaliya ayaa tan iyo markii ay dhacday dawladii dhexe Soomaaliya 1991 waxaa saameeyay dhibaatadii dalka ka dhacday balse haatan taliyaha cusub ciidanka badda ayaa ku rajo weyn in uu dib u soo celiyo haybadii iyo awoodii ay lahaayeen Nashaad Aadan Daahir Kalson TV magaalada Muqdisho